galab wanaagsan jimco wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waa shantii galabnimo oo gow ah dooda jimcaha ee galabtana waxaan ku faaqidi doonnaa loolanka adag ee guddoonka golaha wakiilada ee somalilan oo meel adag maraya xisbiyada oo kala xodxodanaya xildhibaanada cusub ee dhowaan la doortay iyadoo la filayo in golaha wakiilada cusub ee somalilan ay dhowaan yeeshaan fadhigoodii ugu horreeyey oo ay ku dooran doonaan guddoonka baarlamaanka haddaba halkee wax marayaan mucaaridkii isbahaystay ee kuraasta badan ka helay golaha wakiilada weli ma xajisan karaan aqlabiyaddii ay haysteen maxaa xisbiga talada haya u qorsho ah maxayse tahay eedeymaha iyo doodaha labada dhinac iyo weyddiimo kale ayaad barnaamijka uga bogan doontaan waxaa sidoo kale maqli doontaan aragtiyaha iyo weyddiimaha dhegaystayaasha waxaana ka mid ah siyaasadda ay isku hayaan xisbiyada in midibo midka kale uu doonayo asagu inuu hanto guddoonka waxaase looga baahan yahay xisbiyadu in ay markaasi u tanaasulaan danta dalka islamarkaana wax kasta oo isku dhac keeni kara ka fogaadaan barnaamijka waxaa wadajir u soo wada saaray cabdiraxmaan dhimbil iyo ciise xaaji cabdi aniga oo muxidiin axmed robla'ana waan idinla socodsiinayaa marka horese warkii caalamka iyo saciid xasan mahadsanid muxidiin madaxweyne baydhan ayaa sheegay in diyaaraddii ugu horreysay taasoo sida turjubaanno reer afghanistaan ah kuwaasoo la soo shaqeeyey militariga maraykanka ay cagaha soo dhigtay dalka maraykanka wuxuu intaa ku daray in xilligan ay tahay fursad weyn oo ay washington ku fulinayso ballanqaadkii ay u samaysay kuwii la shaqaynayey ciidamada maraykanka iyo siyaasiyiinta 20kii sano ee uu dambeeyey ku dhowaad 200 oo turjubaanno ah iyo qoysaskooda kuwaasoo yimid aroortii hore jimcaha ayaa loo qaaday saldhigga militariga ee Fort Lee kaasoo ku yaala Virginia waxaa lagu wadaa inay halkaasi sii joogaan ilaa iyo muddo gaaraysa 2 toddobaad ka hor inta aan loo qaadin ama la bilaabin hanaankooda dib u dejinta kumanaan turjubaan oo reer afghanistaan ah kuwaasoo la shaqeeyey maraykanka ayaa la filayaa in laga soo daabulo dalkaasi si looga badbaadiyo suurtagalnimada in ururka taalibaan ay aargoosi kula dhaqaaqaan isagoo ka hadlayay caasimadda kaabul safiirka maraykanka u fadhiya afghanistan Ross Wilson ayaa sheegay in maraykanku samaynayo wax alle wixii ay ku caawin karaan kuna fududayn karaan hanaanka dib u dejinta ee dadkii la shaqaynayey ee reer afghanistan. For months, we and our colleagues in Washington have worked to speed up. muddo bilaaba waxaan annaga iyo asxaabteeda Washington joogtaaba ka wada shaqaynaynay sidii aanu degdeg wax uga qaban lahayn habka soo saaridda fiisayaasha gaarka ah ee soo galootiga ilaa bilowgii sanadkan shaqaalaha iyaga qunsuliyadda Kaabul waxay bixiyeen 5,000 iyo dheeraad fiisayaasha gaarka ah waxaanay waraysi la yeesheen kumanaan qof oo kale oo kuwo kala dalbanayay dadka qaarkood baaba haatan Maraykanka tegay some of whom departed yesterday. jid weyn oo dhaca dhanka xeebta ee dalka Liibiya kaasoo u dhexeeya bariga iyo galbeedka dalkani ayaa dib loo furay iyadoo uu xirnaa 2 sano dib u furista dhabadani waxay qayb weyn ka ahayd heshiiskii xabad joojinta kaasoo dhex maray dhinacyadii ku dagaalamayay Liibiya jidka ayaa xirnaa ilaa iyo intii Khalifa Xaftar hogaamiyaha ciidamada fadhigoodu yahay bariga ay bilaabeen weerarada ay ku doonayaan inay ku qabsadaan caasimadda Tripoli 2019 sanadkii hore xabad joojin ayaa lagu heshiiyey inay soo afmeerto weeraradii waxaa lagu dadaalayay in dib loo soo celiyo xasiloonida iyo midnimada dalkani iyadoo hanaankan uu ka shaqaynayay ururka jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa si ku meel gaar ah ayaa loo furay dhabadan ku teedsan xeebta bishii hore ha yeeshee maalin kadib ayaa dib loo xiray 2 shaqaale ah ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay weerar loo geystay markab shidaal kaasoo ku howlgala magaca shirkad Israa'iili ah badda Carabiya oo u dhow badweynta Hindiya Zodiac Maritime ayaa sheegtay in mid ka mid ah 2 qof ee la dilay inuu ahaa Ingiriis halka kan kalena uu u dhashay dalka Romania wasaaradda gaashaandhigga Ingiriiska ayaa kal hore xaqiijisay in shilkani dhacay xilli dambe oo maalintii Khamiista ahayd meel u dhow jasiiradda Cumaan ee Masiira laakiin kama aanay bixin wax faahfaahin dheeraad ah Zodiac Maritime waa shirkad fadhigeedu yahay magaalada London taasoo uu milkiyadeedu leeyahay ganacsade Israa'iil u dhashay oo la yiraahdo Yael Ofer iyadoo la cadeeyay markabku inuu yahay nooca xambaara saliidda iyo shidaalka magaca uu ku howlgalana uu yahay Mercer Street laakiin uusan ahayn kii rasmiga ah maraakiibta kale ee xiriir kale leh Israa'iil ayaa la bartilmaameedsanayay bilihii u dambeeyay iyadoo looga shaki qabo in weeraradani ay ka dambayso dowladda Iiraan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhanka cuntada WFP ayaa sheegtay in kolonyo baabuur ah oo ay ku raran yihiin cunto
kuwaasoo ku xanibnaa gobolka qowmiyadda canfartu ka degto ethoobiya ugu dambeyn loo ogolaaday inay u gudbaan gobolka tigreega kaasoo uu waayadan dambe u halakeeyey dagaallo 110 baabuur ayaa ku xanibnaa halkaasi toddobaadyo sababo la xiriiro amni xumo dowladda abiye axmed ayaa iska fogeysay eedeymaha ah inay hay-adaha gargaarka bini'aadamo u soo jeediyeen taasoo ah inuu si ulakac ah u hor istaagay gargaarka ku wajahan gobolka tigreega halkaasoo ay kumanaan dad ah ay saamaysay cuno la-aan aad u xun madaxa hay-adda USAID Samantha Power ayaa safar ay ku tagtay Ethiopia sabtidii maanta waxay rajaynaysaa inay qayb ka qaadato dadaalada lagu doonayo in gargaarka loo ogolaado inuu u gudbo gobolka tigreega qaybo ka mid ah ciidamada ruushka iyo Uzbekistan ayaa si wada jir ah uga qayb qaadanaya dhoolatus ay wada sameynayaan labadan dal meel u dhow xadka uu la leeyahay dalka Uzbekistan dalka Afghanistan geynta ciidamada ayaa timid maalmo kadib dhoolatus kan la mid ah oo ay la sameysay dowlad kale dalka ruushka taasoo ah Tajikistan iyadoo labadan dowladoodba ay ka mid ahaan jireen midowgii Sovieti ayna labaduba baadigoob ugu jiraan taageerada maamulka Moscow labadan dalba waxay cabsi weyn ka qabaan ururka Taliban kaasoo weeraro joogto ah ka wada gudaha dalka Afghanistan iyagoo ururkan u muuqda kuwa wiiqi kara dowladda Kabul ciidamo ka socda dalka saddexaad ee Kyrgyzstan ayaa la filayaa inay ku soo biiraan maalmaha u dambeeyo ee dhoolatuska military kaasoo lagu wado inuu soo gabagaboobo 2 toddobaad gudahood intaas waxaa inagu dhan warkii aan dib iskugu celiyo Muxidiin iyo qaybaha kale ee barnaamijka Muxidiin aad baad u mahadsan tahay Saciid kalab wanaagsan mar kale dhageystayaal sida aan hore u sheegaba dooda jimcaha ee maanta waxaan ku faaqiidi doonaa loolanka adag ee lagu jiro doorashada guddoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland barnaamijkana waxaa igala qayb galaya Cabdinaasir Buuni afhayeenka xisbiga talada haya ee kulmiye xogayaha warfaafinta ee xisbiga wadani Yuusuf Kayse iyo sidoo kale guuleed dafaac oo ah sharci yaqaan Hargeysa jooga mudanayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka aad baad adinkuna u mahadsan tihiin intaynan barnaamijka guda gelin bal aynu ku bilowno warbixintan kooban oo uu Hargeysa ka soo diray wariyaheenna Sadiiq Burmad oo uga hadlayo loolanka doorashada iyo wararkii ugu dambeeyay doorashadii Somaliland ka dhacday 31 May intii ka dambeysay ilaa iyo imika waxa socda loolan adag oo u dhaxeeya xisbiyada oo ku saabsan cidda hogaamin doonta shir guddoonka aqalka wakiilada ee cusub ee la soo doortay labada xisbi mucaarada oo isbahaystay ayaa waxa uu soo baxay 52 xildhibaan oo ah aqlabiyad aad u badan halka xisbiga talada haya ay u soo baxeen 30 xildhibaan sida labada dhinac ay u kala cod bataan ayay ugu kala guuleysan doonaan kuraasta shir guddoonka oo aan weli la cayimin fadhiga lagu dooranayo tirada xildhibaanada ee xisbiyadu ay kala haystaan waxayaa iska bedelay maadaama labada dhinacba ay soo bandhigayeen maalmihii iyo muddooyinkii u dambeeyayba xildhibaano kaga soo biiray midba dhinaca kale kuraasta shir guddoonka golaha wakiilada oo ah kuwa hogaaminaya xilka golaha ayaa waxa ay ka kooban yihiin 3 kursi oo kala ah gudoomiye ku-xigeenka koobaad iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ilaa iyo imika kuraasta waxaa ku tartamaya 2 nin oo u sharaxan xilka gudoomiyenimada iyo 4 xildhibaan oo u sharaxan ku-xigeenada tartamayaashan ayaa 3ba ay ka kala sharaxan yihiin xisbiyada dawladda iyo isbahaysiga mucaaradka waxa maalmaha soo socda la filayaa inuu golahu yeesho fadhigoodii ugu horeeyay oo ah ka lagu dhaarin doono xildhibaanada si haldheeri ahna golahu ugu dooran doono xubnaha shir guddoonka aad buu mahadsan yahay Sadiiq Burmad oo Hargeysa warbixinta inooga soo diray aynu barnaamijkii ku soo noqonno mudanayaasha barnaamijka nagala qayb galayana aanu soo dhaweyno Yuusuf Kayse waa xogayaha warfaafinta xisbiga UCID Cabdinaasir Buunina waa afhayeenka xisbiga talada haya ee kulmiye iyo guuleed dafaac oo ah sharci yaqaan Hargeysa jooga mar kale saddexdiinaba soo wada dhawaada aan ku bilaabo Cabdinaasir Buuni Cabdinaasir halkee xisbiga talada haya wax u marayaan aad iyo aad baad walaal u mahadsantihiin BBC iyo dhageystayaasha BBC-daba laanta afka Soomaaliga iyo walaalahayga ku jira doodan xogayaha warfaafinta xisbiga UCID iyo garyaqaan guuleed dafaac aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaal sida Somaliland iyo guud ahaan adduunyaduba ka dharagsan tahay Somaliland doorasho ka dhacday 31 May laba doorasho oo taariikhda Somaliland aan hore uga dhicin oo isku sidkan ayaa dhacay oo lagu soo doortay doorashadii golaha wakiilada iyo doorashadii golayaasha deegaanka ilaahay fadligii doorashooyinkaasi waxay noogu dhamaadeen si nabdoon oo deeraheedii waxaana maanteed iyo sharafteeda iskale xisbiga talada haya iyo xukuumadda Somaliland oo uu
waxa weye madaxweyne ka yahay muuse biixi cabdi iyo daneeyayaashii doorashada oo axsaabta qaranka ugu horeysa oo nuga mahadnaqayno sidii ay hawshaasi aanu isku kaashanay noola qabteen dee qodobaa jidaynaya marka doorasha dhacdo qaanuun buu dalku leeyahay hab iyo hanaan baa loo soconaya waxaa jirta in muddo lagu dhawaaqo ee doorashada ay ku dhawaaqaan guddiga doorashooyinku ay ku dhawaaqaan natiijada hordhaca ah waxaa la sugayaa ciddii cabasho qabtaa inay maxkamadda dastuuriga geyso warkaasoo dhan cabdinaasir arrinkaaso ayay haysanayaan ha cabdinaasir marka annaga waxay wax noo marayaan sida dastuurka uu sheegayo qodobkiisa 43 xarunta golaha wakiilada jamhuuriyadda somaliland waa magaala madaxda caasimada golaha cusubna waxa uu qabanayaa fadhigiisa ugu horeeya muddo 30 cisho ah 30kii cisho ayaa hadda madaxweynuhu uu haystaa sida uu dastuurku sheegayana waxa muddadaasi cayimaya oo iskugu yeedhaya madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland waxaana fadhiga cusub furaya guddoomiyaha maxkamadda sare oo dhaarinaya xubnaha cusub xubnaha waxay iska dhex dooran doonaan xubintooda ugu da'da weyn oo gaarsiin doonta inay doortaan waayahay cabdinaasir aad baad u mahadsan tahay marka arrimahaasoo dhan aanu ka warhaynaa halkaasina wax noo maraya waaya arrimahaasoo dhan waa usoo noqon doonaa 30 maalinna waxaan malaynayaa in uu ku eg yahay damaadka toddobaadka soo socda oo la filayo markaa in baarlamaanku golaha wakiilada cusubna ay fadhiisan doonaan waxaynu maanta ka hadlaynaa bal waa arrinta guddoonka iyo loolanka iyo kala xodxodashada xisbiyada yuusuf kayso ku soo dhawow b b c da iyo barnaamijkeena dooda galabta waxaynu ognahay xisbiga ucud in uu ka mid ahaa xisbiyadii ay saamaysay kala xodxodashada xubnaha baarlamaanka oo xubno idin ka mid ahi isbahaysi la galeen xisbiga talada haya ee cabdinaasir buuni uu halkan ka joogo afhayeenna u yahay bal ka waran tiradii aad haye yuusuf kayse hore ugu soco waan ku siiyey warka bismillahi raxmaani raxiim marka hore waxaan salaamayaa dhammaan shacbiga somaliland na dhegaysanaya sidoo kale waxaan salaamayaa maamulka iyo shaqaalaha b b c da sidoo kale waxaan salaamayaa labada saaxiib ee aan ka wada qayb qaadanayno doodan ku saabsan xaaladda maanta somaliland doorashadii dhacday 31 May gaar ahaan shirka golaha wakiilada waa maalin jimcaha waxaa ku jirta saacatul ijaabo ilaahay waxaan ka baryayaa horta in ilaahay nala kula siiyo sidoo kale waxaan afeefka yargayaa inay si ay dooda u caddaato yaa khaldan yaa saxan in aynu ku eekaano tobiga ama dulucda ah in shir guddoonka golaha wakiilada si shacbiga somaliland ugu caddaato marka hore ilaahay baa mahad leh subxaana watacaala mar labaadka shacbiga somaliland 31 May waxay u codeeyeen hooyooyinka iyo dhammaan shacbiga somaliland waxay u codeeyeen in yuusufow codeyntii waa soo dhamaatay yuusuf boqolkiiba 95 mucaaradka siiyeen sidaa daraaddeed arrintaasi dee waa ogtiinoo markii xukuumaddu natiijadii ay ka heshay doorashada 2021 May markay natiijadeedii ogaatay ee ay ogaatay xildhibaanada u soo baxaya ay ogaatay in aqlabiyadii mucaaradku helay waxay xukuumadda ku tallaabsatay tallaabo ka hor imanaysa isbeddelkii shacbigu u codeeyeen maxay tahay tallaabada oo ah inay mucaaradkii 52 xildhibaan ee shacbigu ugu codeeyeen isbeddel ee doonista shacbiga ku yimid inay maaragtay sifa aan wanaagsanayn inay maaragtay ku khasabto inay xisbigeedii keento maadaama aanu xisbigooda ka soo bixin inay xisbigoodii keento oo ay maaragtay iyada la mawqif taasina waa xaaraan weeye laakiin ilaa imika waxaan rajaynaynaa oo aan maaragtay 100% aan hubnaa in mucaaradku uu sidii shacbigu u codeeyeen uu iman doono isbeddelkii maaragtay ay u codeeyeen oo shir guddoonka uu mucaaradku yeelan doono ilaahay yidhaahdo yuusuf waan kugu soo noqonayaa marka hadalka aynu qaybsanno yuusuf waan kugu soo noqonayaa cabdinaasir buuni baan u tegayaa cabdinaasir waad maqlaysaa saaxiibkaa yuusuf kayse wuxuu leeyahay xukuumadda iyo xisbigii talada hayay wixii dadku ay doorteen wax ka duwan ayay raadinayaan eeddaa maxaa ka leedahay horta waxaan kuu sheegayaa 3 xisbi qaran mudanayaal baa uga soo baxay golaha wakiilada waxa weeye xisbina ma helin aqlabiyad gaara
yuusuf labu isku qaldayaaye shacbigu mudanayaal bay soo doorteen mudanayaashuna xaq qaanuuni ay u leeyihiin inay shirguddoon doortaan arrinta laysku hayaay waa shirguddoona way soo dhaaftay dadku mudanayaashay doorteen way guulaysteen intii kaydka galaysana way galeen oo way hadheen inta marka waxa laysku hayaay waxa weeye mudanayaasha soo baxay ayaa iraadadooda ku dooranaya shirguddoon waxayna shirguddoonkaasi imika ku dooranayaan oo aqlabiyadii haysta oo waadixa oo iyagoo tirada ugu badan ku midoobay balse way jirtaa inay labada xisbi markay isku biireen aqlabiyad ay heleen laakiin saddexda xisbi qaran midna tira ku filan muu helin weliba tirada ugu yar xisbiga ucid ayaa helay marka mudanayaasha soo baxay shirguddoonka ay dooranayaan iyagaa xaq qaanuuniya u leh marka yuusuf laba isku qaldaya shacbigu raggay doorteen shirguddoon bay dooranayaan shirguddoonkay dooranayaan iyagaa xaq u leh raggaa ay ku midoobeenna aqlabiyadu way heleen way ku midoobeen laakiin ma haystaan mudanayaashu waxay dhammaantood usoo wada wareegeen xisbiga talada haya waxayna ku doorteen iyagaa xaq qaanuuniya u leh cidda ay shirguddoon u dooranayaan xisbiyada qarankuna uma yeedhin karaan uma odhan karaan halkaa iyo halkaasaad u codaynaysaan waxaana waa iraado qaanuuniya wakiiladu ay markay isku qaldayaa shacbigu waxay u codeeyeen mudanayaashii soo doorteen laakiin mudanayaashii iyay dooranayaan cabdinaasir aan ku weydiiyo guuleed baynu sii doonnaa laakiin ka hor aan adiga ku weydiiyo mudanayaasha golaha cusub ee wakiilada ee somalilan xisbiyey kala matalayeen oo ay tartanka ku galeen waxayna tiraduna waxay usoo kala baxday oo natiijadu noqotay in xisbiyadu tirooyin kala heleen kulmiye sida muuqataahi waa sax saddexda xisbiba aqlabiyad midna ma helin laakiin xildhibaankii ucid laga doortay maxaad adinku u daba taagan tihiin soo xisbigiisa inuu ku talo noqdo maaha eeg waxa weeye dabataagni maaha waxa weeye marka saddexda xisbi tiro ku filan ay heli waayaan laba xisbi ayaa iskaashanaya laba xisbi mucaaradda doorashadii 2005 iskaashaday oo golihii ku horreeyay kusoo baxeen oo ahayd xisbiga hadda talada hayo marka mucaarad xoog weyn ahaa iyo xisbiga ucida yuusuf hadda waxa weeye uma hadlayo taasi shirguddoon ku qaateen dee tii umuray maantana in kulmiye iyo ucid ay garab ka mid yahay midoobeen aqlabiyadina ay ku qaateen weliba ay soo raaceen aqlabiyad kasii badan waxa weeye xisbigii wadanina iyaguna ay nagu soo biireen marka qaanuun diidayaana ma jirto in xisbiya iskaashadeen sida iyaguba isku kaashadeen annaguna isku kaashadeen iyaga laftigooda qayb ka mid a marka qaanuun diidayaana ma jirto wax diidayaana ma jirto yuusuf marka iyagu raggoogii haddii ay siyaasaday ku qanciyeen ay waayeen waxa weeye raggii u riyaaqeen ragga aanu soo sharaxnay iyo siyaasadda xukuumadda iyo matalaada dadkii soo doortay matali doonaan waxa weeye iskaashiga xukuumaddii iyaga dhex mari doonay inay u arkeen in dal qaran ku jirto daha aqbalaan waaya buni arrimahaas oo dhan waa usoo noqon doonaa laakiin yuusuf kaysow wixii horay u dhacay oo ah in xisbiyadu xildhibaanadu inta xisbi ka baxaan xisbi kala galaan oo caadiga ahaa oo horay usoo dhici jiray sida uu cabdinaasir buuni sheegay ayaa dhacay maxaa hadda ka cusub oo ka duwan oo adinku adood uga qabtaan walaal waxaan doonayaa inaan halkaa caddeeyo cabdinaasir waa siduu u jecel yahay buu u dhigay maaha sidaa waxa weeye 2005 laba xisbi baa markaa midoobay oo isbahaysi samaystay labadaa xisbi waxaa hogaaminayey hogaamiyeyaashoodii labadii guddoomiyeha hogaaminayey sidaasaa markaa shirguddoonkii loogu heshiiyey maanta waxaan aada uga xumahay iyadoo sharciyadii dalka ay gacmaha ku qaateen xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisu oo ay maaragtay garab isbahaysiga u cuda iyadoo guddoomiyihii iyo hoggaankii xisbiguba halkan jooga inay maaragtay sifo sharci darro ah oo xaaraana oo indhala-aana inay maaragtay xildhibaano soo baxay kula heshiiyeen oo ay macni ka dhigeen garab iyagoo u qiil samaynaya sharci jebintaa ay sameeyeen inay welibana ummadda hordeeda ama shacbiga hortiisa ay la hor yimaadaan oo si indhaadkaana oo indhala-aana welibana ay nagula doodaan waa arrin aad iyo aad looga naxo waa arrin maaragtay murugadeeda leh arrintaa xisbiga kulmiye waa ku ceebaysan yahay labada xisbi maaha kulmiye wixii shalay toole uu sameeyey ee la saxsanaa maanta inuu la qadhaaraado 2005 waxaa ka ahaa xisbiga kulmiye guddoomiye ama musharax madaxweyne axmed maxamed maxamuud siiraanyo guddoomiye ku-xigeenna waxaa ka ahaa madaxweynaha maanta muuse bixi cabdi iyo maxamed kaahin oo ahaa guddigii markaa loo saaray arrintaa marka waxaan aad iyo aad uga xumahay arrin aanu madaxweyne daahir ku kicin
wuu heli karayay madaxweyne daahir riyaale isaguna inuu markaa garab sameeyo laakiin isagoo sharciyada dalka dhowraya oo ixtiraamaya shacbigiisa iyo maaragtay isbedelkii berigaa dadku u codeeyeen ayuu faraha ka qaaday labadii xisbina wuxuu ku ixtiraamay majoritigii ay heleen manuu faragelin laakiin qoladani way waasheen habeenkii doorashadaa laga helay ilaa habeenkaa caawa wasiir gurigiisa usoo hoyda ma jiro waxay ku jiraan inay dhaqaalihii ummadda hantidii ummadda keyshow waan kugu soo noqonaya arrimahaasoo dhan adiga uuna sheegaya xisbiga kulmiye xisbi gaara oo doorasho ka helay ma jirto saddexda xisbina tiro ku filan cid heshay ma jirto laakiin waa la iskaashanayaa cid baad iskaashateen ciddaa aad iskaashateen aqbala annaguna waan aqbalsannahay golahuna isaga xor u ah cidda uu codaynaya shirgudoona habkii hanaanka u dhacaysana waxa iskale hay-adaha qaanuunka u jideeyey intaa ha waya buni waa mahadsan tahay guuleed sharciyaqaan baa tahay waayo araga xogogaal u ah arrimahan horta markii doorashada la gelayay iyo matalaada golaha wakiilada markii laga hadlayo dadku ma xisbiyo ayay doorteen mase shakhsiyaad ayay doorteen bismillahi raxmaan raxiim mahadsantihiin nidaamka doorashada somaliland waa nidaam proportional ama yani guuleed qadkaa ka xun waan ku soo noqonaynaa aan u noqdo yuusuf kayse yuusuf cabdinaasir buuni wuxuu ku leeyahay isbahaysigiinii ku qanca inaydan aqlabiyada haysan ku qanca in aad xildhibaanadiinii qanci weydeen ku qanca oo waxba ha cabanina maxaad ka leedahay horta waa laba qodob oo arrinta sharciga waxaan isku haynaa in arrintaasi sharci ma tahay mise maaha garyaqaan guuleed baa jooga oo noo iftiimin doona shacbigana maaragtahay uu iftiimin doona siday tahay in xisbiga kulmiye garab dastuurka iyo sharciyada dalka waxay ka horanayso guuleed sharciyada dalka waxay ka horanayso hadalkayga iida beliis iida waan ku dhegaysanay inta aad hadlaysay waayaha guuleedaan ku noqdo hadda guuleed wuu soo noqday waadaxiyo garab isbahaysiyo ma la geli karaan xisbiga kulmiye awood oo heshiis ma saxeexi karaa xisbiga ahayn ama guddoomiyihii ahayn waya warka kale hela cabdinaasir iyo yuusuf guuleedaan ku noqdo guuleed markaan waxaan rajaynayaa inaana maqli karayso weydiintaynu waxay ahayd oo sidoo kalena uu ka dhawaajiyey yuusuf kayse dadku ma shaksiyaaday doorteen mase xisbiyay doorteen somaliland aad oo mahadsantihiin dad nidaamka doorasho see somaliland mar kale waa ka xumahay qadka aada uga xun guuleed mana maqlaysaa hadda ha waan maqlay haye hore u si fiican baan idin maqlaya haye hore u soco nidaamka doorashada somaliland waa mid dadku ay ka dhex tartamaan xisbi oo xubin xisbi ka yihiin laakiin waxa loo codeeyaa qofka si toosaba qofka muwaadinka ugu codeynaya iyadoo nidaamkuna yahay nidaam saami ah oo wadada guud ee gobol uu ka helayo xisbiga ay ku salaysan tahay tirada guud ee xisbigu ka helo gobolkaasi laakiin qofka muwaadinka ee codeynaya wuxuu codeynaya qof ka tirsan xisbi marka ka waran qofka loo codeeyay xisbiga magaciisa ku tartamay ma ku gowracan yahay talada iyo xeerarka xisbigiisa nidaamka somaliland u yaalla waa su-aal muhiima iyo taariikhda dhaqameed ee yaalla toonna kuma qora qofka wakiilka loo soo doortay inuu ku qasban yahay inuu codeeyo mar walba xisbigiisu waxa uu doonayo xeerarkana saas kuma qoro dastuurkana saas kuma qoro dhaqanadii hore la yiqiinayna saas maaha inkastoo yani nidaamka guud ay tahay expectationka la filanayo inuu codka la yeesho xisbigiisa laakiin waxa sanduleynaya runtii sharciyan ma jirto oo dastuurka ku qoran ama xeerarka dalka ku qoran oo lagu qasbayo inay mar walba ku gowracnaadaan waxa xisbigoodu doonayo waa yahay cabdinaasir iyo yuusuf kayse labadaba waad dhegaysanaysay su-aashayda guuleed baan weydiinaya haya weydii guuleedow heshiis uu guddoomiyuhu ka maqan yahay iyadoo aynu eegayno shuruucda dalka garab isbahay ma la odhan karaa garab ucida oo matalaya magacii xisbiga ayaa kulmiya heshiis la geli kara su-aasha doonayno inaad shacbiga u caddayso sharciya runtii haddii loo eego la yidhaaho afka xisbiga yaa heshiis guuleed waa dhexdhexaad oo horta xeerasha xisbiyada isagu war uma haye cabdinaasir okaadi guuleed baa hadda warkii wata bal horta guuleed warka ha dhamaysto oo horta runtii waxa wanaagsan in la fahmo in arrimahani qaybina sharci tahay qaybina siyaasad tahay
oo loolanka ay xisbiyadu ku jiraan intiisa badanina ay tahay loolan siyaasi oo la xidhiidha cidda guddoomiyaha golaha wakiilada noqonaysa inay saameyn weyn ku yeelanayso nidaamka siyaasiga sharciga ee dalka maadaama sanadka dambe la filayo in doorashooyin dhacaan ama ha noqoto mid madaxtooyo ama tii xisbiyada ha noqotee kolkaa xisbiyadan tartamaya inkastay sharciga garabka gelinayaan laakiin runtu waxay tahay meesha foge looga leeyahay inay tahay saameynta ballaadhan ee golahani ku yeelan doono siyaasadda haddaan laakiin usoo noqday su-aashii yuusuf weydiiye la xidhiidhay magaca xisbiga ayaa wax ku saxiixi kara qaanuunada dalku waxay odhanayaan waxa magaca xisbiga wax ku saxiixi kara oo kolkaa waajib ay ku noqonaysaa xisbigu inuu fuliyo inay tahay guddoomiyaha xisbiga markuu u maro nidaamka sharciga xisbiga gudihiisa u yaala waayahay cabdinaasir kulmiye iyo xukuumaddiisu sharci jabin samayn markay garab yidhaahdeen xisbiga u cudba heshiis nala galay miyaanay xaaraan ahayn iyo fawdo xisbigii tirada hayay uu dalka ka sameeyey ma huba guuleed inuu su-aashaa ka jawaabi karaayo laakiin hadduu ka jawaabayo guuleed waan u ogolaanaynaa haddii kale aynu cabdinaasir sino waa kaleer taa waad macadsantay guuleedow inaad shacbiga somaliland iskaashigii 2005 warka kale hela bal marka warka kale hela oo qofkiiba mar ha hadlo inaynaan yuusufo majara habaanin bulshada haddaad ku haysan weydaan kalsooni mudanayaashii ka soo baxay qanci weydaan oo aad qanci weydeenba de waxa weeyaan u daaya inta golaha tagayaanay dooranayaan waxa weeye hogaamin doona boni cabdinaasir boni haddii aad xisbiga kulmiye cid heshiis la galayo maxaa shakhsiyaad iyo xildhibaano aanan magacii xisbi kale go-aan ku gaari karin aad heshiis ula gelaysaan maxaad hoggaanka xisbiga u cid ula macaamili weydeen waxa weeye ragga ka soo baxay waa raggii doorashadii shirweynaha ee xisbiga u cid lagu doortay Faysal shirweynihiisii u dambeeyay ninkii lala doortay ee qodax ahaa oo ku-xigeenka xogayaha guud loo doortay iyo musharaxii madaxweyne ku-xigeenka oo waxa weeyaan aniguba waqtigaas aan xuquuqaal u lahaa shirweynihii lagu doortay ee u xalaaloobay raggii lagu doortay ayaa halka yimiday mudanayaal golaha wakiilada xisbiga u cid uga soo baxayna iyagana heshiiska galay awoodna way u leeyihiin waana xildhibaano marka hadday iyaga waxa weeye xaaraan ma ahe waxa weeye waxaad qanci weydeen mudanayaashii nii soo baxay adishakoodii siyaasiga ahaa ayaad qabad ku noqdeen hogaamiyayaasha xisbiyada ee khaayisay ee waxa weye muddada dheer jira marka inamadani waxay doonayeen in badhna han bay lahaayeen oo naasir qodax oo kale wuxuu lahaa inuu shirgudoon buu okaadi buni marka aan mid ku weydiiyo buni leeyahay buni mid aan ku weydiiyo waxaan ku weydiinaya waxaa weeye sida guuleedba uu inoo sheegay markii xisbi xildhibaanku aragtidiisa iyo taladiisa shaksiga waa u madax bannaan yahay laakiin magac xisbi go-aan iyo heshiis iyo isbahaysi kuma geli karayo marka maxaa xildhibaanadan xisbiyada kale ka yimid si shaksiya maxaad ula macaamili weyseen maxaa xisbi wadani xisbi magaciisu siiseen waxa weeye dastuur buu dalku leeyahay iyo shuruuc ka farcanta iyo waxa weeye xeerar dalkan u yaalla intaa midna kuma xusna qodob qabanayaana ma jirto waxa weeyaan iyagoo midnida ah ya yuusuf aan aniga ku imaado marka oran dastuurka qodobkee sheegaya in maaragtay guddoomiye xisbi cidaan haya heshiiskaas saxeexdo in ku noqoto ma arrintaas way dhamaatay celcelinay markhaatigana uu dhacaye hogahay hore uga soco maya eeg waa xeeroosaadiyadiina xisbiyada u yaalla wey laakiinse xisbigu heshiis wuxuu la galayaa qof koox inta badan intaba waaya waa mahadsantihin labadiinuba labadiinaba waad mahadsantihiin yuusuf kaysaan hal mar ku noqonayaa yuusuf meesha waxa lagu hayaa waa siyaasad waxbaa la kala xodxodanayaa aragtiyo dad baa la kala jiidanayaa maxaa xeer ugu dhegan tihidiin mar haddii xodxodashadii laidinka badiyey ma isaga qanacdaan horta waxa weeye waxaan kuu sheegayaa oo aan maaragtay shacbiga somaliland oo caddaynaya annagu xisbiye mucaarada nahay hanti iyo maaragtay iyo awood dawladeed midna gacanta looguma jirto xukuumaddu 30 May markay ogaatay natiijadii ay ka heshay doorashada waxay bilowday inay awoodii iyo dhaqaalihii iyo maaragtay inay ku muquuniso xildhibaanada maanta aad arkayso oo aan maaragtay aan iyagana aad u geli doono waxyaabaha miidiyaha ay maaragtay xildhibaanada qaar ka sheegaan oo ah oo aad moodo
maaragtay inaanay iyaga laftooda qaar ka mid aanay fahamsanaynba ujeedada meesha ay u tegayaan iyo iminka waxyaabaha inaad kula yaabo waxa kamid nin xildhibaana wuxuu odhanaya kadib markaan eedeymaha dhaqaalaha dantii ma garanaysaa iyo dantii isagaaba maamulaya waa xildhibaankii loo doortay inuu miisaaniyadda qaranka u maaragtay u qaybiyo shacbiga somaliland inuu maaragtay u noqdo qaranka somaliland ayaa isagii wuxuu u daba fadhiyaa wuxuu ku leeyahay marka buuni aan siiyo eedeyntaada buuni ha ka jawaabo arrinka aad soo jeedisay buuni ha ka jawaabo ee dhaqaalaha iyo waxbaa la bixinaya ee lacagaha la xiriirta maana gaarida maxaa walaal waxaa kuu sheegaya Maxiyadiinow walaal waxa weeye horta mudanayaasha 280 mudane ee doorashadii isku sidkaneed ee dalkan ka dhacday waxa weeye xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan basharaf iyo qiimo weyn iyo xurmo weyn baan u haynaa afkayagana maaha kufkayagana maaha ceeb weyn bayna in mudane dhan oo bulshadii qaranka Soomaaliland soo doorteen inay labada xisbi walba hogaamiyayaashooda iyagu ay leeyihiin buuni arrinta uu soo jeediyay arrinta eedeymaha iyo dhaqaalaha la xiriira arrinka maxaa ka leedahay ka maxaa ka leedahay maradiina waa niiga tacsiyaday inay hadalleen mudanayaasha labada xisbi ka soo baxay arrinta waxa weeye xukuumadda awood saartay xukuumadda waxa weeye hogaaminaya ka madaxweyne ka madaxweyne Muuse Biixi isla markaana gudoomiyaha xisbiga talada haya madaxweyne Muuse oo gudoomiye xisbiga talada hayay waxa waajib xisbi ku sida labada gudoomiye xisbiga siyaasadda xisbiyadooda uga shaqeynayaan inuu isna uga shaqeeyo waxa weeye siyaasadda xisbigiisa laakiin awoodii iyo dhaqaalihii dawladda ka waran awoodii iyo dhaqaalaha dawladda ka dhacday annaga qabsanay doorashada xukuumadana bixisay oo waa doorashadii u horeysay ee isku sidkan isla mar ahaantaasina aanay adduunyadu naga caawinin taa iyada cid lagu tuhmi karay iyo musuq toona ma jirto mudanayaashan soo baxay kow ambition siyaasi leeyihiin waxay leeyihiin Yusuf Reis soo gal labada xisbi buuni loo kaadi marka waqtigoodu dhow yahay iyo waxaan haye Yusuf hore u wado Yusuf wado Maxiyadiinow horta maanta doorashada 31 ee dalka ka dhacday duuqaadka iyo caqli labada xisbi mucaarad bay ku dhacday ee xukuumaddu iyo xisbigeedu marnaba uguma talagelin dalka doorasho ka dhacdo wuxuu ka waray waxay meelaha ka yidhaahdaan fagaarayaasha inay maaragtay aanay doorashada faragelin anigu waxaan halkan ummadda shacbiga Soomaaliland horena uga sheegay imikana ka cadeynaya inay faragelisay oo xisbiga kulmiye uu noqon lahaa xisbigii ugu hooseeyay doorashada sagaalka imika kulmiye dheeriye u cid waa waya Yusuf eedeymaha iyo waxyaabaha soo dhan adigoo xisbiyadii matalaya un baa sheegaya annagu ma inaan hubin cadeen uma hayno qaarayeen waxbarashada ku reebeen iyadoo waxbarashadu siisay warqadii waxbarashada ayaa haddana laga daba tegey xildhibaanadeedii baa la xirxiray toos bay u farageliyeen waya weydiintaydii usoo noqo waxay ku dhacday caqliga labada xisbi bay ku dhacday marnaba ugumay talagelin xukuumaddu in dalka doorasho ka dhacdo ugumay talagelin taa ayaanay ku faanin meelaha waa la yaabaa markay meelaha Yusuf warka soo ururi oo aynu warka kale helno waya labadiinaba marka idinku soo noqon doonaa guuleed labada dhinacba waad maqlaysaa aad baa aragtiyaha loo kala fog yahay iyo doodaha la kala sheeganayo maxaa warkoogii markaad dhuuxday markaad soo ururiso maxaa kaaga soo baxay oo aad isleedahay waa muhiim in laga fahmaahay waxa la isku hayo runtii waa su'aal muhiim ah waayo waxaan qabaa arrinka la isku hayo ee yaa gudoomiyaha golaha wakiilka noqonaya inay ka muhiimsan tahay shaqada golaha wakiilada u taala dhowr iyo 10 sanadood baa la filayay dadka reer Soomaaliland mucaarad iyo maxaafidba shaqo weyn oo ballaaran bay ka filanayaan golaha wakiilada kolka cidda gudoomiyaha u noqonaysa mar walba in cid ay dhamaantood ku wada kalsoon yihiin oo aanay isku dilin ayaa shaqada ku socon kartaa laakiin hadday dibadda maaragtay mariyo dhiigla ku sii kala furtaan hadhowto siday shaqadii maalinlaha u qabsan lahayd way adkaanaysaa marka waxay ku fiicnaan lahayd in siyaasadda iyo khilaafku ka yaraan lahaa doorashada golaha wakiilada oo loo deyn lahaa xildhibaanada golaha wakiilada laftigoodu inay iska dhex doortaan laakiin saameyn fara badan bay saddexdii xisbiga ku doonayaan inay ku yeeshaan taasina khilaafkii bay kor u qaaday waa sababta ay u tahay mas'alo aad iyo aad siyaasadeed ahaan u badan marka loo eego dhinaca sharciga waayo dhinaca sharcigu wuu fudud yahay wuxuu oranayaa maalinta marka la fadhiisto qofka sharaxaya wuu soo gudbinayaa 28 xubnoodna gacanta ay u taagayaan qofka ay doonayaan inuu noqdo gudoomiyaha qofka gudoomiyahana waxa laga doonayaa inuu dhex noqdo golaha oo dhan oo isku wado oo si odaytinimada iyo dhexdhexaadnimo habsami socodka golaha uu shaqadii ku qabto marka gaabiska wuxuu ka jiraa xisbiyadan laga yaabaa inay ka meermeerayaan
dad kulmiye ka tegay mucaaradka u tegayna hadda way jiraan kuwa badan oo mucaaradka ka tegay u tegay kulmiyena way jiraan waxay muujinaysaa in xisbiyada gudahoodu aanay adkayn oo kolka xisbinimadii iyo mabaadidii xisbinimada iyo sugnaanshihii iyo dimuqraadiyaddii gudahoodu wax ku xun yihiin taasina ay keenayso dadka soo baxa inaanay xiriir badan ba la lahayn xisbiga laftigiisa kolka qof waliba uu ku go'aan qaato sida uu isagu doonayo gudihii debate ama doodi ka dhicin marka waxa la muhiimsan cid kastaba ha noqotay cidda loo dooran doono golaha wakiilada dhawaan in lala wada shaqeeyo la hubiyo goluhu inuu shaqeeyaan xuriyaamin waa ta koobaad ta labaadna xisbiyadu intay isku noqdaan inay dhexdooda is hagaajiyaan oo dimuqraadi noqdaan oo ideolojiyadii aragtiya adag la yimaadaan si xubnaha ka imanaya iyagu ay noqdaan xubno xiriir ka dhaxeeyo golaha ee aanay noqonin xubno ha dhowto qof waliba kolka halku doono uu aadi doono laakiin hal xidhaalayn hor yaala waxa weeye golaha hadda sida mariyaha dhiglaw si kala furanaya khilaafka weyn ka dhaxeeya waxa bulshada reer Soomaaliland gobolada dhan joogta ka filanayaan ma fulin karayaan waa shaqo culus oo ooli doonta guddoomiyaha cusub dooran doono waa weydiin muhiim ah halkaasaan barnaamijka ka sii wadi doonaa balse markaan aan ku noqono dhageystayaasha oo aan aragtiyadoodii iyo weydiimahoodii qaarkoodna maqalno assalaamu calaykum magacaygu waa axmed maxamed xasan ku sugan magaalada burco doorashada guddoonka baarlamaanka ee Somaliland runtii waa mid waqtigeedu dheeraaday waqti dheer qaatay sidii loo dooran lahaa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenada si baarlamaanku shaqadu loo doortay u qabsadaan runtii shacabkii soo doortayna arrinkaas waa arrin ku adag oo waqti dheer inay sugaan waxaa kaloo soo baxday in xildhibaanadii qaar la leeyahay xusbi kale galeen xusbi kale ka soo baxeen oo ciidamadii lagu doortay ay mudani ka baxeen oo la leeyahay laaluush bay qaateen runtii xildhibaanadan waxay dadka shacabku rajeynayeen inay ka duwanaan doonaan xildhibaanadii hore Somaliland lagu xamin jiray inay laaluush ka qaataan xukuumaddu waxay wadatana ay ku shaqayn jireen runtii arrinkaas waa mid niyad jebinay shacabka Somaliland aad iyo aad baan uga xumahay waxaan si rajeynayaa inay khayr ku dhammaan doonto iyo si nabadgelyo lagu dooran doono maalmaha soo socda guddoomiyaha assalaamu calaykum BBC magacaygu waa aadan faarax farsle waxaan joogaa caabud waaq haddii aan aragtida ka dhibto xisbiyada mucaaradka ee u tartamaya shirguddoonka golaha wakiilada waan bogaadinayaa waxaana rajeynayaa in meel wanaagsan ay ku dambayn doonto doorashada shirguddoonka golaha wakiilada ciddii ku guulaysatana loogu hambaliyay doono hase yeeshee waxaan xisbiyada ku boorinayaa inay iska daayaan mid uu dhaleecaynayo in xildhibaanada ka kala tirsan xisbiyadaas ee qaarba mid uu u goosanayana in arrintaas laga waantoobo oo mid xisbi kasta oo xisbi uusan ku xadgudbin si loo helo nidaam kala dambayn leh ciddii ku guulaysata shirguddoonka golaha wakiiladana loogu hambaliyeeyo doorashadaasina waxay ku dambayn doontaa meel wanaagsan sida aragtidayda waana mahadsantiin bahda BBC assalaamu calaykum BBC magacaygu waa Jimcaale Maxamuud aadan jooga dalka Djibouti haddaan reegayga ka dhigto xildhibaanada ka soo baxaya xisbiyada mucaaradka ee kusoo diiraya xisbiga kulmiye iyadoo jiraan qaar kaloo xisbiga kulmiye dhanka kale xisbiga kulmiye ka baxayo xisbiyada mucaaradka ku diiraya horta qofku reegiisa isagaa xora iyo meeshuu gelayo isagaa xora inkastoo xukuumadda Somaliland xoog looga wadeynay inay faragelin ku hayso iyo galaangal qaawan ku hayso xisbiyadii mucaaradka ahaa shirgudoonkii golaha wakiilada ood moodo in xisbiyada mucaaradku ay xaq u lahaayeen waayo iyaka aqlabiyadda waddanka xoog imiga ugaga gacan sareeya xisbiga kulmiye dastuurka Somaliland wuxuu dhigay kolba qofkii aqlabiyadda leh inuu qaadan karo shirguddoonka golaha wakiilada wuu mahadsan yahay dhegeystahaas Jimcaale codkiisa hadduu meelaha qaarkood uusan nadiif ahayn waa idinka raali gelinaynaa doodeennii hadalkii ugu dambeeyey Jimcaale iyo halkii guuleed uga tagay baan kasii wadaynaa iyo Yuusuf oo kasii horreeyey Yuusuf baan ku noqonayaa Yuusufow xisbiyadiina mucaaradka marar badan baad ku celceliseen dhaqaale iyo lacag iyo wax musuqmaasuq iyo arrimaha bal inoo sheeg oo maantana dadku soo bandhig maxaa cadeymaa oo hadal dhaafsiisan oo eedeymahaas u haysan walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxa fiican horta in la isu garaabo oo wixii jira aan maaragtay la iskala horman indhalaan maaragtay la qiro waxaan caddayn u hayaa xildhibaanadii laaluushka loola tegay afkooda ka sheegay oo media ka sheegay oo yidhi lacag intaa leeg ayaa naloola yimid waa u diidnay taasaa caddayn u ah waxaa kaloo arkaysaa maalin walba in nin wasiiri uu maaragtay shaqadii qaranka uu kaga mashquulo inuu maaragtay xildhibaanadii ku kala qaybiyo oo maaragtay ay maaragtay casuumada ku samaynayaan waxa kaloo aan kuu sheegaya mayd maxaa u dambeeyey baa la yidhi iyo kaa la sii sidee tiifigii qaranka
ee magaciisu ahaa TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee maaragtay hooyooyinka bacadka fadhiya ay cashuurta ku bixinayeen iyo raadiyo Hargeysa ayaa maalin walba xisbiyada mucaaradka laga aflagaadeynaya oo laga dhigaya codkii shacabkee 75% ahaa Somaliland 75% ahaa ee loo codeeyay isbedelka ayaa shacbigii oo dhan TV-ga qaranka leeyahay adeer xukuumaddu haddii faratoon waa nin wanaagsan oo soo shaqeeyay xukuumaddu haddii Muuse Dawo uu wanaagiisa maalin walba inoo sheegay madaxweyne Muuse kursiga uga kaco Yusuf intaasoo cadaymo ah arinta shirgudoonka Yusuf intaasoo cadaymo ah haddaad haysaan maxaa maxkamadda u aadi weyseen inay keenayaan shirgudoonka golaha wakiiladu anagu sababaanu soo dhignay xisbiga kulmiye bal sababaha ha sheegaan anagu waxaan sheegnay haddii shirgudoonka golaha wakiiladu mucaaradku qabsado kow in aqoonto in adduunyadu ay caawinayso Yusuf aan warka kala helno waan kugu soo noqonaynaa warka aan goosanno Yusuf warka aan goosanno weydiin baan ku hayaa eedeymahaas iyo waxaas aad tixdo dhan haddaad cadaymo u haysaan maxaa maxkamadda u aadi weyseen waxaan kuu sheegaya walaalo xildhibaanadii baa afkooda ka sheegay oo yidhi laaluush baa naloola yimid oo miidiya ka sheegaya oo maaragtay hadda ma maxkamad la aadaan cadaymo haddaa haysaan ma maxkamad la aadaan oo warbaahinta kala tagtaan oo xeerarka iyo maxkamadaha iyo sharciyada la aadaan arrinka maxaa warbaahinta ku koobay waxaan kuu sheegaya walaalo maxkamadaha sharafta uga midan yihiin doorashadii berigii dhaweyd inta yare imika ucud kaga soo badbaaday ixtiraam baanu hayaa aadan xaaji cali laakiin se culays weyn baa haysta maaragtay xagga xukuumadda markaas xukuumaddu markay marka maxkamadihii waa saluugaysaa madax banaanidooda warkaagu sidaa miyaa Yuusufow madax banaanidii maxkamadaha waxa weeye waanu calaamatu su'aal baanu shaki weyn baanu gelinay waayo xukuumaddu awood waxaan arkaysaa kees ma u geysa dacwo ma geysata marka Yuusuf oo isagu magaranaysaa qaran yahay oo isagu magaranaysaa ayaad arkaysaa maalin walba waxa weeye xukuumaddu wixii sharci looran jirta way laabtay Yuusufow balna dhegeyso Yuusuf markayga i dhegeyso Yuusuf haddaad maqlayso waxaan ku weydiinayo waxaa weeye dacwad inta qaadeen xisbiyadiina mucaaradku garsoorka iyo maxkamadaha ma la tagteen saluugiina ka hor horta oo midinka qaban waayeen ama midinka dhageysan waayeen intaydan waxba saluugin ama aydan shaki qaadin walaalo Somaliland intaasoo dacwadood ba ka dhacay Somaliland intaasoo ayaa maaragtay oo labadaba u dhacay marka waxaan aaminsanahay inay banaanidii garsoorku aanay xukuumaddu faraha ka qaadaynay markaa culays la saarayo oo maaragtay ay tayadu doonayso inay ku sulbuleynayso tayadu doonayso inay oo madax banaanidii garsoorka ay meel kaga dhacaysaan ognahay waan kugu soo noqonayaa marka waa kugu soo noqonayaa guuleed dafacow sharciga iyo maxkamadaha iyo xog ogaal baa u tahay haya cabdinaasir waan ku siiyey qaado cabdinaasir Boni Yusuf horta aad baan kaaga mahadnaqayaa su-aasha aad weydiisay aanu xaqiiqadeeda haynin ee sida fiican ugu haftay waxa weeye rag baa yidhi buu yidhi oo TV-yada ka yidhi isla raggii buu ka daba yidhi marka waxaanoo dhawaa waa la wada yidhi weeye waanan ka xumahay in xisbiyada qaranka dad waa la yidhi ay ku hogaamiyaan taw leeyahay cashuur baa la bixinaya iyo islaanta tamaandhada haysi iyo telefishinka qaranka waxa laga sii daaya islaanta tamaandhada ibisa cashuurta laga qaado iyaga qaybka oo xisbiyada qaranka miisaaniyada ay ku socdaan baa ka siinaaye iyaga waxa weeyaan meel kale oo ay wax ka helaan iyo taana xaq bay u leeyihiin waa arrin xaq u leeyihiin macaawino iyo deeq siinaysan ma horta waa dhageyso inayna iska dhigin waxa weeyi niman aan cashuurta dalkan ummadan cashuurteeda iyaga qaybka oo waxa weey laga quudiyaa oo siyaasadda xisbiyada codaan qaanuunkuna uu jideynaya laakiin markay iyagu dan leeyihiin bay dhaadaan waxa weeye waxa la bixinayaa laaluush baa la bixinayaa taa horta iyadu ma jirto waxaan u sheegayaa Yuusuf iyo ku kalsoonaada mudanayaashii xisbiyadiina ka soo baxay aad soo sharaxdeen siyaasadii aad ku soo sharaxdeen iyo shirgudoonkii aad ku soo sharaxdeen ee aad tiraadeen shirgudoonkaasaan isku waafaqnay way diideen waxayna aqbaleen halka waxa weeye fartooda iyo qaanuunku uu siinayo inay u codayaan bay aqbaleen la barlaamada yeeshaad ku aqbashaan waayahay Boni aan mid ku weydiiyo sida caadiga ahi xisbiyada talada haya Afrika iyo dunida meelo badanba waa la tuhmaa
waxa loo tuhmayana waxaa waaye awooddii xooggeedii inay urursan taho marka ma waxaad leedahay waxaan tuhumka ah oo dhaqaale in laydinku tuhmaayo ah inaad garsoorkii si saameyn ugu leedihiin uu sida yuusuf ka dhawaajiyey lacagihii xaggiina waxaasoo dhan waxba kama jiraan miyaad leedahay garsoorku waa garsoorkii markii guddoomiye cabdiraxmaan cirro ucid ahaa iyo jamaal cali xuseen iyo faysal cali waraabe xisbiga ucid dacwad dastuuriya ay gashay maxkamadda waa tii faysal ammaan iyo faysal loo xukumay maxkamadda horta waa tii eedaynta hadda aan kuu sheegay ee yuusuf soo hadalkaada waxba kama jiraan miyaad leedahay dacwad ay geeyeen dacwad ay geeyeen oo laga diiday ama ay leeyihiin dacwadaasaa hor taalla oo garsoorkiiba ka meeraysanayana dee hadduuba kuu sheegi lahay adaa weydiiyey taas waa waxa weeye waa taas wey tan uu leeyahay waxa weeye awoodda aad leedahay afrika dawladaha awoodda adeegsada annagu waxaan kuu sheegaynaa maanta adduunyadoo dhan ku majiiratay labadaa doorasho isku sidkan mucaarad kii soo baxay iyo muxaafid kii dhacayba intuba ay somaliland iyo xukuumadda ku ammaaneen in doorasho xalaali ay dhacday iyagaa maalin walba afkooga ka odhanayay arrinta ay ka gubanayaan waxa weeye waa laba qodob mudanayaashan soo baxay deegaanay matalaan deegaanada ay matalaanna horumar baa laga sugaya iyo waxay shalay cabdinaasir waa mahadsan tahay waan kugu soo noqon doonaa waxay kaga xiran tahay inay xukuumadda maanta joogta iskaashadaan oo ay u arkeen mudanayaashani inay tahay xukuumad musuqi la dagaalantay xukuumad siyaasad hufan dalka ku hogaaminaysa xukuumad ee waxa weeye samaysay doorashooyin aan dalka hore uga dhicin xukuumad waa mahadsan tahay cabdinaasir waan kusoo noqon doonaa guuleed intaynan u tegin war degdeg ah oo hadda ina soo gaaray magaalada kismaayo naga soo gaaray wuxuu sheegayaa in qarax uu ka dhacay magaalada waxay wararku sheegayaan in qaraxa lala beegsaday gaari bas ah oo ay la socdeen ciyaartooy ka tirsan koox lagu magacaabo j c c waana kismaayo ka dhisan sida uu baahisay warbaahinta dowladda soomaaliya wararka qaar waxa ay sheegayaan in gaarigu uu gubtay ayna jiraan dhaawacyo iyo dhimasho inkastoo aysan jirin tiro weli la shaaciyey oo la xaqiijiyey warkaana waxaa lagu qoray wakaaladda wararka soomaaliya ee soona waxayna wakaaladda wararka soomaaliya ee soona ee intaa ku daraysaa in dadka dhintay ay gaarayaan 4 qof oo ka mid ah ciyaartooydii gaariga qaraxa lala beegsaday saarnaa wixii warar oo kusoo kordha idaacadaheena dambena waa ku maqli doontaan bogoga aynu internetka ku leenahay ee websitekeena iyo baraha bulshadana waad kala sii socon doontaan aan kusoo noqdo barnaamijkii guuleedow marka ay tuhumo iyo doodo iyo eedeymaha noocaasa ay jiraan maxaa dhinacyada u furan dhanka sharciga iyo maxkamadaha marka la eego ilaahay horta ha naxariiso dadkaa dhintay inta dhaawacu gaadhin ha bogsiiyo labay walaal kala noqonaysaa mid waxa weeye maalinta la cayimo doorashada fadhiga golaha wakiilada ee cusub 82 qof cid ay u codeeyaan ayaa noqon doonta gudoomiyaha golaha wakiilada iyo labadiisa ku xigeen oo ay tahay cid waliba inay ku iimaansato aqbasho laguna ixtiraamo laguna wada shaqeeyo oo qaanuunku saas uu cadeynaya in ay tahay waxa goluhu isku muqoonin doona cidda codkaasi u batona ay noqon doonto ee xubnaha golaha ay raacaan cidda guddoonka golaha wakiilada noqon doonto taa halkaasay ku dhammaan doonta ciddii iyadu og faldambiye dhacay ama tuhunsan waxaa u furan inay hay-adaha sharciga ee xeer ilaalinta iyo booliiska uga dacwoodaan oo ay kolkaa iyagu baadhaan oo ay dabagalaan iyada intaasun baan ka odhan karaa laakiin anigu waxaan isleeyahay marka laga yimaado eedaha faraha badan ee dhinacyadu iswadaarsanayaan oo aanan beenina karin caddayna karinin waxa muhiimka ah tahay mustaqbalka dhow in golaha wakiilada iyo xisbiyadu ka wada shaqeeyaan inay tahay siyaalaha ugu wanaagsan ee xisbiyanimadana loo xoojin karo goluhuna u wada shaqayn karo shaqada muhiimka u taalo ee dadkii soo doortay ay ka filanayaan deegaanadii miyiga leh baahiyaha faraha badani ay ka jiraan ay uga qabanayaan ay ka wada shaqayn lahaayeen ee aan muranada siyaasiga ah ee aan dhammaanaynin aanay noqonin kuwa haga golaha wakiilada haddii taasi hagto goluhu wuxuu noqonayaa mid curyaamo oo aan shaqaynaynin laakiin cid waliba waa inay ku qancdaa ugu dambaynta 82 qof ciday guddoomiye iyo labada guddoomiye ku xigeen ay u dooran doonto marka guuleed maxaa kursigan miisaanka iyo ahmiyadda intaa la eg siiyey oo dooda iyo khilaafka intaa la eg inuu ka dhasho keenaba waa su-aal muhiima caadiyan golaha wakiiladu sida baarlamaanada kale adduunyada la midaba cod bay ku kala baxaan guddoomiyuhuna kama cod bato oo awood dheeraada kama leh xubnaha golaha marka laga yimaado inuu guddoominayo laakiin nidaamka waxyaabuhu maamulo waxa lamid waxyaabaha maamulka administrative-ka iyo dejinta ajendayaasha golaha wakiilada ayuu awood badan ku leeyahay qofka guddoomiyaha noqonaya marka maadaama ay soo socoto dooradii madaxtooyadu oo dhow ama sanadka soo socda ama ku xiga midkood dhici karta mucaaradkuna waxay doonayaan inay maamulaan hay'ad dawladeed oo ay si weyn ugu mucaaradi karaan xukuumadda si ay ugu fududaydiso doorashada madaxtooyo
xukuumadduna waxay doonaysaa inay sii haysato golaha wakiilada si aan ugu yaraan ugu noqonin golo ku mucaarada u noqdo golo cidda maamusha u noqdo cid iyaga la jirta marka waxa lagu dirirayaa maaha oo keliya golaha qofka kursiga fadhiisanaya si uu eegyahay waxay ku tooganayaan dhammaantood hamiyada siyaasiga ee madaxtooyo iyo sharci dejin iyo miisaanadeed ee soo socda golahu maamulayo maadaama qofka guddoomiyaha dejinta ajendayaasha iyo ku hadalka afka golaha wakiilada uu u xilsaaran yahay waana sababtay ugu kulul yihiin xisbiyadu ay isugu haystaan haddii kale way fududaan lahayd in 82 xildhibaan loo daayo qofka ay doonayaan inuu oday ugu noqdo golaha inay u doortaan waaya aad si fiican baad u dhigtay guuleed waa mahadsan tahay aan cabdinaasir iyo yuusuf labadaba kusoo noqdo waxaynu ku dhownahay gabagabadii barnaamijkeenna waxaynu rabnaana intayna barnaamijka soo xirin bal halkana inaan isla ogaano eediyamihii waa isla maqalnay dacwadihii iyo doodihii waa isla maqalnay iyo meelaha la kala taagan yahay intaba cabdinaasir buuniyo bal aan adiga kugu bilaabo iyo xisbigii talada hayay ee kulmiye doorashada sida la filayo haddii 30 maalin xeer ku ahaa lagu qabanayo waxay u eg tahay toddobaadka soo socda wixii dhammaadkiisa loo gaaro inay dhici doonto maxaad tiradii doorashada idinkugu soo baxday ee la ogaa maxaa idinkugu kordhay horta waxaan kuu sheegayaa shacbiga reer somaliland aan u sheegayaa in muddadii qaanuuniga ahayd ee madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland dastuurku siiyey xukuumadda iyo madaxweynaha iyo xisbiga iyo guud ahaanba shacbiga reer somaliland ay ka dheregsan yihiin waktiga noqon doonto madaxweynuhuna waxa weeye uu ka xil gudan doonaa marka ay waktigeega gaadho waxaana iman doonta in markaasi guddoomiyaha maxkamadda sarena uu dhaariyo golahuna ay waajibaadkiisii hore ay ka galaan oo ay doortaan guddoomiye guddaada weynaa iyo oo gaadhsiiyo shir guddoon guddoomiye laba guddoomiye ku-xigeen taas horta waanu shacbigan u bayaaminayaa waxaana dhaartu ka dhici doontaa xarunta golaha wakiilada jamhuuriyadda somaliland sida dastuurka qorayana waa magaala madaxda oo caasimadda hargeysa ah xisbi ahaan iyo siyaasadayada iyo mudanayaasha nooga soo baxay waxa weeye xisbi ahaan doorashadii golaha wakiilada iyo mudanayaasha aanu iskaashiga la yeelanay iyo mudanayaasha ay siyaasadda xukuumadda iyo shir guddoonka aanu soo dhignayba golahay ka hor caddaan doontaa marka kamana hordhacayo sad xisbi halkana kama sheegayo halkaasina ka caddaan doontaa waana arrin qaanuuniya oo golahu xaq u leeyahay inay waxa weeye doortaan shir guddoon intaa kasoo hadhaana waa siyaasadda xisbiyada buni inta la wada ogaa labada xisbiye mucaaradku markay isbahaysteen tiro aqlabiyad ah oo xoogganay haysteen marka bal dadkana usii sheeg markii malaha laga soo tago maxaa idin biiray wax noo sheeg waxaan kuu sheegayaa iyaguwa waxay la qaylinayaan iyaga og waxay la qaylinayaan iyaga maxay niga tegeen ilaa iyagaa lahaa aqlabiyad baan nahay anagu weli qaylinaya lamaanaan adigay ku joogtaa hadda sheegaya waxay joogtaa mudanayaashii oo sugaya in la dhaariyo shir guddoon ay doortaan bal ka waran xisbiyada idinka xubnaha xildhibaanada idinka tegay qaarkood oo mucaaradkan u codaynaynaa dhahay iyaguna tirada idinka maqan ma idinkugu jirtaa waxaan kuu sheegayaa ma jirtaan kuuri xisbi 3 xisbi aqlabiyad helay kama xumin anagu mudane hadduu iyaga la aragti noqdo kama xumin ceebna maaha laaluush baa la siiyana odhan mayno kufkayagana maaha taato lamid iyaguna waa ina aqbalaan waayahay yuusuf kaysow beeladan iyo doodan adag iyo eedeymahan maxaa idinka keenaya ma tuhun baa idinka galay aqlabiyadii aad iyo tiradii aad ku tirsanayseen baa wax iska dhibeen ma sidaas ba may soomaalida waxay tiraa horta dheriga maxaa karka ka keenay iyo kuleylka annagu waanu ku kalsoonnahay saacadda imakaan kula hadlayo hadduu madaxweynuhu warqadda soo saaro waxaanu ku kalsoonnahay in aqlabiyadda maaragtay mucaaradku ay maaragtay kursiga sidii shacbigu u doorteen ee isbeddelka ugu cudiyaan ay ugu fadhiisan doonaan hadday xisbiga kulmiya iyo xukuumaddiisu waxay isla hayaan 2 bilo 31 May 3 bilood 2 bilood yuusuf kayse waxaan malaynayaa inuu qadka ka go'ay oo aynan maqli karaynin waxaanse ku rajo weynahay inuu nagu soo noqon doono buniyow aan kugu soo noqdo adiga guuleed waa dhegaysanaysay wuxuuna ka digayay khatarta iyo ayaan darrada ka dhalan karaysa in golihii iyo xisbiyadiiyo saan u kala fog doorasho la galo iyo saamaynta ay ku yeelan karayso shaqadii baarlamaanka iyo golaha wakiilada laga filanayay
walaaca ma idiin muuqdaa idinku xisbigii talada hayay ee kulmiye ahaan walaal Somaliland doorashooyinka ka dhacay waxa weeye qaangaad baanu ka nahay wax allaali wax khatar ina ma jiraan waanu isjiijiidanaa marka aanu midowno waxa weeye hay-adaha qaanuuniga go'aamadooda gacmahaanu isqabsanaa mid baanu nahay wax khatar oo dhacayaan ma jirto golaha wakiiladuna nasiib wanaagsan baanu u rajaynaynaa weliba maanta ragga soo baxay waa ragga qoyahana waa rag da'yara waa raggii la rabay qaranka Somaliland ee tacabka badan loo soo galay inay halkaa kasii qaadaan khatar badani ma jirto waxa jira waa intaa xanxanta waa Yusuf soo dhawow mar kale hore ugu soco warkaagii halkaagii ka wada waan soo yar koobayaa horta waxaan idiin sheegayaa anagu markaanu qaybinay shirgudoonka cadaalad baanu qabanay dhammaan Somaliland oo dhan waanu maaragtay waanu u qaybinay teeda kale waxaan kuu sheegayaa Soomaaliya waxay tiraa dheriga maxaa karka ka keenay iyo kuleelka xisbiga kulmiye ilaa ma 31 May markii ay maaragtay aqlabiyad ay arkeen xisbigoodu tiradu helay ilaa saacadda iminkaan kula hadlayo weer baa u xidhan marka wax wal oo maaragtay ay samayn karayeen way sameeyeen laakiin alxamdulillah waxaan ku kalsoonahay geesiyaasha qaran ee isbedelka loo doortay inay maaragtay saacadda iminkaan kula hadlayo haddii la fadhiisto ay ku guulaysan doonaan in yar baan doonaya inaan dadka u sheego waxaan halkan maaragtay aad iyo aad uga mahadnaqaya madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin oo markii labada xisbi mucaarad 2005 isbahaysiga ku dhawaaqeen isla markaana shacbigu doorteen aqlabiyada faraha ka qaaday oo aan maaragtay dhexgelin aad iyo aad baan madaxweynaha ugu hambalyeynaya taariikhdaana qori doorta kuwa xisbiga kulmiye arrintii shalay toole arrintay shalay iyagu sameeyeen maanta ay ceeb u arkeen arrintii shalay Muuse Biixi Maxamed Kaahin ay saxda u arkayeen maanta inay la qalloocatay dooda horaan u sheegtay horaan lagu wada maqlay gabagabadii barnaamijkaanu ku jirnaa aan su'aal ku weydiiyo middaa oo ah maxaa dhici karaya haddii waqtigii lagu ballamay in madaxweynuhu uu ku iclaamiyo guuleed baan siinayaa Yusuf adiga maaha guuleed baan siinayaa guuleed maxaa dhici karaya haddii waqtigii lagu talagalay 30 maalin gudahooda madaxweynuhu uu ku shaacin kari waayo kalfadhigii koowaad ee baarlamaanka golaha wakiilada ee cusub ee Somaliland sharciyan sharcigu wuxuu dhigayaa madaxweynaha wuxuu siinayaa 30 maalmood kulkaas 30 maalmood kamay dhicin wali maalmo harsan waxay rajaynaynaa inuu 30 maalmood madaxweynuhu ku qaban doono laakiin balaaba haddii ku dhicoodo xeerku dastuurku ka hadlay 15 cisho kale gudahood bay golaha wakiiladu xaq u leeyihiin iyagu iskoodu fadhiistaan madaxweynuhu isugu yeeri waayo 30 cisho gudahood 15 cisho ka soo bilaabantay maanta maxkamadda ku dhawaaqday ayay iskood iyaguna u fadhiisan karaan oo goluhu isugu iman karaan laakiin ma filanayna halka tegaysa waxaan rajaynayaa 30 cisho maadaama dharaaro madaxweynaha harsan yihiin uu qaban doono goluhuna isdooran doono guddoonka cusub ee la doortaana inuu qaban doono shaqada weyn oo taalo ah inuu golaha u mideeyo sida shaqada maalinlaha ah ee dadka reer Somaliland ee baahan ay doonayaan in goluhu aad baa mahadsan kuleed Cabdinaasir iyo Yusuf labadiinaba hal su'aal oo isku mid ah idin weydiinayaa inoo soo kooba jawaabaha waqtiga naga dhacaya guuleed waad maqlayseen waxa loo socdaa oo xildhibaanadan loo soo doortay waa inay shaqo qabsoontaa oo baarlamaanku shaqeeya oo hay'adihii dawladdu shaqeeyaan meesha iyo doodaha iyo dhinacyada kala taagan tihiin aad baa loo kala fog yahay mid walba diyaar ma u yahay doorashada natiijada ka soo bixi doonta laba xisbiyadoo dhan inaad aqbalaysaan Yusuf Kaysa adan kugu bilaabaya annagu diyaar baanu nahay inaanu aqbalayno natiijada hadday si xor ah oo xalaal ah ay u dhacdo oo miidiyaha Somaliland oo dhan oo shacbiga Somaliland oo dhan ay wada daawanayaan oo online lagu wada daawanayo su'aal baad gelinaysaa waa mahadsan tahay Buuni diyaar ma u tihiin ma ku qanacsan tihiin waxa la wixii doorashada guddoonka wakiilada Somaliland natiijada ka soo baxda dalka Somaliland waxa madaxweyne ka madaxweyne halgankii ku suntan laba doorasho isku sidkan qabtay dalkan inuu socdo ay dhab ka tahay musuqa la dagaalamaya sabab dalkan sharaftiisa iyo qiimihiisa inay socdaan maalinta golaha la fadhiistana taariikhdii dhacday 31 labada doorasho ayaa adduunka u soo horseeday ayay ku dhamaan doontaa guul iyo gobonnimo shacbiga reer Somaliland u rajay aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin dhageystayaal barnaamijkeennii dooda jimcaha Cabdinaasir Buuni afayeenka xisbiga kulmiye xogayaha warfaafinta Yusuf Kayse ee xisbiga Ucid iyo guuleed dafaac sharci yaqaan ayaa nagala qayb galayay waxaanana ku eegaynay loolanka guddoonka doorashada ee golaha cusub ee wakiilada ee Somaliland anigoo Muxudiin Axmed Robla ayaa idin la socodsiinayay Cabdiraxmaan Dhimbil iyo Yusuf Xaaji Ciise Xaaji Cabdi ayaa barnaamijka si wada jira inoogu soo wada saaray Saciidna warkuu inoo aqrinayay dhammaanteen oo isku duuban mahadsanidin